bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani wararka barnaamijyadeedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka dowladda federaalka Itoobiya oo deegaano hor leh kala wareegay kooxda TPLF iyo dagaalo xoogan oo ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijyadeedkeena ku daawan doontaan dowladda Itoobiya oo hub casri ah ka soo iibsatay dowladda Israa'iil dowladda Mareykanka oo aydan u soo jeedisay dowladda Eritrea waxaad kaloo barnaamijyadeedkeena ku daawan doontaan dowladda Mareykanka oo cadaadis xoogan ku bilowday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawan doontaan balse marka hore daawade channelkeena raadka wararka subscribe saaro muuqaalkana like saar oo sii share garay gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan waa maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 12 sanadka 2021 ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo dhameystiran ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya waxayna sheegeen in ay qabsadeen deegaano hor leh ay ku sugnaayeen kooxda TPLF ciidamada oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee ka dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaalo xoogan oo ka soconaya deegaanada Canfarta iyo Amxaarada ciidamadan ayaa waxay sheegeen in ay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan aagga Gashana iyo Wareelo magaalooyinkan dowladda dhexe ay sheegtay inay qabsatay waxaa ka mid ah Kimis Majete iyo Rokin magaalada Kimis ayaa ah xarunta gobolka gaarka ee Oromada kaas oo ka tirsan deegaanka Amxaarada ciidamadan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay ku sii wajahan yihiin magaalada Kombolja wararka laga helayo magaalada Kombolja ayaa waxay sheegayaan in xoogga TPLF ciidamadoodii ugu badnaa ay ka baxeen magaaladaasi maalmo ka hor waxaana magaaladaasi ku sugan ciidamo kooban ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ayaana ku sii wajahan ciidamada oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan waxay dib u qabsadeen goobo ay horay u haysteen xoogga TPLF taasi oo muujisay inuu saxnaa go'aankii oo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ugu biiray dagaalka hase yeeshee sida ay dowladda ku gaartay guushan iyo waxa ay uga dhigan tahay natiijada dagaalka socda muddada sanadka ah ayaa ah arrin ay dood weyn ka taagan tahay xilli dagaalku oo galay waji cusub bil ka hor ciidamada TPLF ayaa u muuqday kuwo carcar ah ayaga oo qabsaday magaalooyinka Disi iyo Kombolja oo ku yaala waddo muhiim ah oo gasha caasimadda Itoobiya Addis Ababa xoogga TPLF ayaa waxa ay gaareen ilaa magaalada Shawarabid oo 220 kilomitir u jirta caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa hase yeeshee kadib markii Abiy oo toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inuu hogaamin doono dagaalka lagula jiro kooxda TPLF dowladda Itoobiya ayaa gaartay guulo dhowr ah waxayna xoogga TPLF qirteen in ay dib u gurteen isla markaana ay sameeyeen xeelad dagaal cadawga waa la burburiyay waana la kala dhantaalay waxaa sidaasi ku faanay Abiy Ahmed oo soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya afkeeda ku hadasha ee faana shaki kuma jiro in dowladda ay sheegan karto inay ku gacan sareyso meelaha qaar waxaa sidaasi yiri Awid oo ah qabiir amniga geeska Afrika ka faalooda oo ka tirsan jaamacadda Queen's University ee dalka Canada waqtiga ayaa sheegi doono haddii tani ay ka dhigan tahay gacan sareen dagaalka ayuu hadalkiisa sii raaciyay guulaha cusub ay gaareen ciidanka Abiy ayaa qaboojiyay cabsidii laga qabay in xoogga TPLF ay qabsadaan caasimadda Addis Ababa taasi oo horseeday in diblomaasiyiintii caalamiga ahaa ay iskaga baxsadaan caasimadda Itoobiya Addis Ababa dagaaladii ugu dambeeyay ayaa xaaladda dhan kale u rogay dowladda ayaa markii hore sheegatay inay qabsatay magaalooyin ka tirsan gobolka Canfarta oo u dhow waddo muhiim ah oo sahayda loo mariyo Addis Ababa kadib waxay arbacadii guulo ka sheegatay magaalada Lalabela oo hay'adda UNESCO ay u diiwaan gelisay dhaxal adduun taasi oo bishii Agoosto ay qabsadeen xoogga TPLF jimcihii warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in la xoreeyay oo ay qabsadeen ciidanka federaalka Itoobiya magaalooyin ku yaala wadda aada dhanka magaalooyinka Disi iyo Kombolja sidoo kale ciidanka federaalka Itoobiya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay gaareen magaalada Disi iyo deegaano u dhow dagaal waxaa lagu yaqaan inay jiri doonaan dib u gurashooyin kooban iyo dib isu qaabeen waxaa sidaas yiri madaxa militariga TPLF oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP waxaan go'aansanay inaan si iskeen ah uga baxno meelaha qaar si aan u yareyno dhibaatooyinka ayuu hadalkiisa ku sii daray kooxda TPLF ayaa waxay dhibaato xoogan kala kulantay diyaaradaha droniska oo la sheegay inay gacanta ku hayso dowladda Imaaraadka waxayna diyaaradahaasi duqeymo xoogan ka geysteen furimaha hore ee dagaalka iyadoona kooxda TPLF ay ku adkaatay inay ku sii sugnaadaan deegaano badan oo muhiim u ahaa TPLF ayaa haatan waxay sheegtay inay waddo qorshe kale ay ku doonayso in ay dagaalka dhan kale ugu bedesho ciidanka militariga Itoobiya ayaana ku sii siqaya deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda TPLF sidoo kale ciidanka federaalka Itoobiya ayaa waxay la wareegayaan
deegaanadii ay kol hore kooxda TPLF ka qabsatay ciidanka dowladda Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa 3 furin oo kamid ah furimaha ay dagaalada ka soconayaan kormeer ku tagay, waxaana ciidanka ku dhiirigeliyay dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa waxay hub casri ah ka heshay oo ay ka soo iibsatay dowladda Israa'iil. Itoobiya ayaa Israa'iil ka heshay hubka casriga ah ee Tara 21, waana hub tayo sareeya oo Israa'iil soo saarto. Hubkan ayaa waxaa isticmaali doona ciidamada booliiska, ciidamada ilaalada jamhuuriga iyo ciidamada ilaaliya madaxda dalka Itoobiya. Waxaa kaloo hubkan loo isticmaali karaa howlgallada magaalooyinka. Hubkan oo kooban ayaa horey waxa uu haystay ilaalada gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, haddase waxaa lagu qalabayn doonaa ciidamo badan. Dowladda Israa'iil iyo dowlado badan ayaa dowladda Itoobiya ka taageera dhanka hubka. Kooxda TPLF ayaa burburisay garoonkii diyaaradaha ee Lalabela. Burbur xooggan ayaa soo food saaray garoonkii diyaaradaha magaalada Lalabela. Magaaladan oo ka mid ah kuwa ugu faca weyn deegaanka Amxaarada ayaa dhowaan waxaa laga saaray kooxda TPLF. Kooxda TPLF ayaa la sheegay in ay burburisay garoonka ayaana waxaa ka muuqanaya burbur aad u xooggan. Dowladda Itoobiya ayaa kooxda TPLF waxay ku eedeysay inay burbur xooggan u geysatay magaalooyinka ay qabsatay. Sidoo kale, dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in bililqa xooggan ay ka geysteen xoogga TPLF magaalooyinka laga saaray oo ay dhowaan tageen ciidanka federaalka Itoobiya. Magaalooyin badan ay ku dagaalameen ciidanka federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa waxaa ka muuqda burbur aad u xooggan, iyadoona magaalooyinkaasi gabi ahaan qaarkood ay burbureen. Safaaradda Mareykanka ee ku taala Asmara ayaa ku eedeysay ciidamada Eritrea ee ku sugan waqooyiga Itoobiya in ay xanibeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiin lahaa dadka ku sugan waqooyiga Itoobiya, iyagoo intaas raaciyay inay ciidamada Eritrea geysteen tacdiye ka dhan ah bini'aadanimada. Bayaankan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Asmara ayaa waxaa lagu yiri Mareykanku waxa uu ugu baaqayaa inay si degdeg ah ciidamada Eritrea uga baxaan Itoobiya, iyadoo lagu sheegay bayaanka in ciidamada Eritrea ay sii horinayaan colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya. Ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Eritrea ayaa ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya, iyadoona ay ku sugan yihiin deegaanada Tigreega. Ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay tacdiye u geysteen dadka Tigreega ee ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya. Ugu dambeyntiina, dowladda Mareykanka ayaa cadaadis xooggan waxay ku bilowday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Sida xogo la helayo ay sheegayaan, dowladda Mareykanka ayaa wada dadaal xoog leh oo ku aadan in wax laga bedelo hanaanka loo maamulayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan ka bilaabatay magaalooyinka Dhuusamareeb, Baydhabo iyo Muqdisho. Mareykanka ayaa haatan ra'iisul wasaare Roble waxa uu ku cadaadinayaa in uu qabto shir degdeg ah kaas oo ka dhacaya Muqdisho ayna isugu imaanayaan xubnaha golaha wadatashiga qaranka. Dowladda Mareykanku waxay soo jeedisay oo ay qorsheynaysaa in shirkaasi lagu go'aamiyo sidii wax looga bedeli lahaa hanaanka loo maamulayo doorashada dalka ka socota oo durba dhalisay xiisado xoog leh kadib markii bareer loo boobay kuraasta qaar. Xogta la helaya ayaa waxay sheegaysaa in madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ah maamulada ilaa hadda qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ay diidan yihiin oo ay aad uga cagajiidayaan qabsoomidda shirkaas. Madaxweynayaasha maamulada qabtay doorashooyinka sida weyn loo saloogsan yahay ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa la sheegay inay ka soo horjeedaan qabsoomidda shirka ay dalbanayso dowladda Mareykanka. Qoorqoor iyo lafta gareen ayay wararku waxay sheegayaan inay qorsheynayaan in maalmaha soo socda ay safar degdeg ah ugu baxaan dalka Turkiga. Mareykanka waxaa la sheegay inuu aad u saluugay dabacsanaanta ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo ah hogaamiyaha doorashooyinka dalka, taas oo keentay in Roble hadda loo soo jeediyo inuu isugu yeero golaha wadatashiga qaran si wax looga bedelo eedeymaha xiriirka ah iyo boob ka hareeyay doorashada golaha shacabka. Sida qorshuhu ahaa, doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu balansanaa in lasoo gabagabeeyo ka hor dhammaadka bishan Diseembar, balse ma muuqato suurtagalnimada dhowrista jadwalkaas. Dhankooda, golaha midowda musharaxiinta ayaa la sheegay in cadaadis xoog leh ay ku hayaan madaxda dowlad goboleedyada. Sidoo kale, horey waxay u qaadaceen doorashada ka socota dalka, waxaana mucaaradka Muqdisho uga socda kulamo aan la garanayn waxa ka soo bixi doona. Guud ahaan warkaad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.